salaan qaali ah waxaan ku wada salaamayaa martida isugu timid xafladan sharafta badan martidaas oo ay ugu horeeyaan golaha wasiirada wasiirka waxbarashada Puntland oo qolaal dhow la ah bahda waxbarashada Dr. Maxamed Faarax oo kamid ah asaasayaashii jaamacadda ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda martida dibadda nooga timid ayu maamulka iyo macallimiinta iyo tiimka jaamacadda Boosaaso qaybta Garowe qalinjabiyaasha aanan garanaynin maarday miyaa iraahdaa macallimiina iraahdaa laakiin magaca qalinjabiyaasha kaliya ayaan ku kaaftoomayaa dhammaan waxaan ku wada salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qurux badan tahay markii aqalin jabinayso waxa tahayba ahaw arday ahaw maamul ahaw macallimiin ahaw daadaada meesha rabtaa ahaato hadii lagu dhaho aqalin jabinaysa oo waxa ku dhamaaday waxbarasho waday aad u macaan tahay way farxad badan tahay farxad waa idin la qaybsanaynaa tiimka maadaama ay u badan yihiin macallimiin trainingka xoogan ee dibloomada la siiyayna macallin ama teachingka iyo maamulida waxbarashadaba waxa u maleynayaa annaga hadda waqtiga la joogada wax nooga baahi badan waa xal dhihi karaa ma jiraan sababta ujeedooyinka waxbaridaba waxa ugu xoogan labada shay ee kala ah qofka ina gaarsiiso macluumaad ina gaarsiiso information fara badan cilmi fara badan inuu ka qaato oo ah qaybta koobaad ee kamid ah waxbaridda ujeedada waxbaridda qaybta labaad ee qaybta aan ka liidanin waa waxaan behavior modification la dhaho qofka dhaqankiisa iyo la dhaqankiisa dadka iyo waxa uu yahay iyo shakhsiyadiisa ina toosiso annaga waxa laga yaabaa macallimiinteena xoogga waxay saaraan macluumaad gudbinta kaliya waxa laga yaabaa macallinka intaas oo san inuu wax dhigay laakiin maalin uu ardayga kala hadlin dhaqankiisa adduunkiisa iyo aakhiradiisa wanaajinta naftiisa ayaa laga yaabaa wax badan inuuna kala hadlin wasababka laga yaabaa inay isugu eg yihiin dadka wax baranayo iyo dadka aan waxba baranin ee suuqa joogo inayna wax badan ku kala duwanayn muassasaadka waxbarasho iskuulada ka soo bilow dugsiyada jaamacadaha haddii ay bedeli lahaayeen dhaqanka inta uu timaado haddii ay bedeli lahaayeen wax badan bulshada wax badan iska bedeli lahaa arinta waajibka wuxuu saaran yahay macallimiinta maamulka kulli laakiin xoogga la saarayda waxbaridda iyo macluumaad gaarsiinta bal in aad loogu daro bedelidda ama hagaajinta toosinta dhaqanka dadka waxbaranayada aad iyo idinku hambalyeynaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii aad barateen idinkana idinku anfaco dadka maamulka iyo macallimiinta u tiina waxaan rajeynayaa inuu ayagana ku anfaco dadkan u saciyay u orday collaborationka ka dhaxeeya ayu iyo UOB collaborationka ka dhaxeeyo miraha dadka goosteyn idinka ugu horeeyo aad iyo idin wada salaamaya insha Allah ta'ala barnaamijkan in hore loo sii wadane miisku saaran yahay asagana inuu hergala rajeyn doona haduu Ilaahay idmo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka adduunkiina iyo aakhiradiina ba idin wacnaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh